إله بقى مهدله مركز حكتة وحنو مهدل إلينا hay-adan khayriyaadka ee noo keentay dadka jilicsan diwaanka sakata ee dadka jilicsan ee dhibaataysan soo kaalmaysay waxaan leenahay ka jisaayso aad iyo aad baad u mahadsantiin qof kasto arkaya dadka dhibaataysan inuu u damqado ayuun baan dadka faraynaa wad salaamintiin aad baan dadkaan ugu mahadcelinayna bismillahir rahmaanir rahiim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du halkani waa meel kamida degmada Boorame ee gobolka Awdal oo aan raashin ugu qaybinayso hay'adda diiwaanka sakada Soomaaliland dadkaasi oo ah 200 oo qoys oo runtii ah dadka mucaawiqiinta la yiraahdo ama naafada ah sidaynu u naqaano dadkaas oo 200 iyo wax ka badan ah sida la sheegay hadda halka 200 oo qoys oo caruurtoodu ay naafo tahay ayaynu halka ku siinayna raashin ilaahay mahadi waxa runtii ka muuqata halkan arrin u baahan dareenkeeda leh oo ah inay joogto magaaladan gudaheeda dad tirada leh oo mucaawiqiin ama naafa ah oo runtii qof waliba uu meel naafa ka yahay waxa runtii aanu leenahay waxay u baahan yihiin arrintani waa in yar waxay u baahan yihiin kaalmaynta ka badan iyo gurmadinta ka badan oo dhinacyo badan leh qofka haysta wuxuu u baahan yahay in la caawiyo hadday noqoto meel u dego hadday noqoto wuxuu siiyo qofkiisii hayo uu ka kori waayay dhibtiisuu leeyahay waxaanu dhammaan bulshada muslimiinta ah bulshada Soomaaliland ku dhaqan aanu ugu baaqaynaa haddaanu hay'adda diiwaanka sakada Soomaaliland in la soo caawiyo oo tani waa in yar oo aanu soo gaadhsiinay wax badan oo kale ayay u baahan yihiin markaanu dareennay in la soo gaadhsiiyo ayaanu codsanaynaa aad baa u mahadsantihiin waxaanu u mahadcelinaynaa cidda soo bixisay raashinkan ayaanu u mahadcelin doonaa oo Sheekh Saciid aw markaas inoo faahfaahin doono aad baa u mahadsantihiin magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxaanu joognaa meel lagu xanaaneeyo dadka naaftada ah oo waliba caruur u badan dad caafimaadkoodu daran yahay in badan aanay soconin qolinka disable-ka loo yaqaanay ama physical challenge weeyaan macuna waxaanu sidnaa 200 oo qoys oo dhameystiran oo ay soo direen sida looxadaba ku arkaysaan walaalaheena kambaniga iskaashatada takaasida London oo Soncab la yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo oo iyagu 2900 oo dollar soo gaarsiiyay qaybtii ka badnaydna waxay naga soo gaadhay dad reer Ingiriis oo London oo ay wakiil ka tahay oo ka yahay masaajidka Daarusalaam ee ku yaala galbeedka magaalada London uu sheekhu yahay Sheekh Abdulqaadir Ali Cambe masaajidka Daarusalaam iyo intii ku xidhnayd iyo walaalaha Soncab ilaahay baan uga baryaa ciisi adduun iyo ciisi aakhiraba ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo waxaan leeyahay reer UK iyo reer adduunyada jacaladeedaba sidii baaqa uu Sheekh Awil ugu diray ayaa ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyay aan ugu dirayaa haddaynu maanta inagu caafimaad qabno xanuun bay qabaan haddaynu maanta dharagsannahay gaaja imaaratii korkooda ah inaynu dadka liita ee qof baahan oo xitaa caafimaad qaba wadane caafimaad darro iyo wax la'aan iyo gacan la'aan bay isugu darsantay waxaanu ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay caawiyaan ay wax qaban karayaan la qabtaan tani waa hordhac waxaanu u sameynay cajaladeen inaynu tusno baahida taagan disable-ka waa ogtihiin wadamada reer galbeedka qofka iyagoo kala ay sida loo baxnaaneeyo sida loo caawiyo sida loo wax loo siiyo iyadoo dadaalku aanu runtii yarayn haddana dee gacanteennii iyo wax itaalkeennii baa intaa noqday inaynu markaa intaa ka sii badinno oo waa hordhace walaalaha Soncab waxaan ka codsanayaa inay meeshan joogteeyaan caawimadeeda ay hablaha walaalaha inta gudoomiyaha khadra iyo ayaano iyaduna khayr Allah siiyo hadi jeer u cararta khayrkan si gaar ahaaneed gobolkan inaad iduguna insha Allah ta'ala meeshan joogteysaan musaacadadeeda annaguna wakiilideen noqono wixii aan soo gaarsiisaan aanu gaarsiino masaajidka Daarusalaam iyo masaajidada kale ku xeeran iyo galbeedka magaalada London iyo bariga iyo gobolada kale ee Ingiriiska waxaan idin leeyahay walaalayaal meeshani waa meel musaacado u baahan waa dad ay sadaqadu ku baxayso waa dad ay zakadu ku baxayso haddana diiwaanka sakada nahay wax qabadkii sanadkayga ka mid tahay bisha barakeysan ee Ramadaan ugu talagalay annagoo iyaga door bidnay inaan ku bilowno annu hawsha ugu weyn iyaga siino maxaa yeelay dhibaato
آدي هذا وين باعثة حقيقة إلهي وحن كبر إياه إنه عاطمات سيو أرساقدنا وبضيو ولا لها صمكاب ولا لها دار السلام ونسوحوا ذي يصدرنا ونسكدرني أنه كان كأني يجن إلهي سبحانه وتعالى خير الجزاء إنه إلهي سبحانه وتعالى سيو قفكي دتك عاوية باهنا ديسيبل كهي وحبان هيسن إلهي سبحانه وتعالى عاون دونا هذا رمضان قديه هذا تهاي يوحي رمضان قدم بيبا هذا تهاي هذا ولا ما رأيت عيد حجك أو نففكي هلبكي إنه هوشن عاونه إنه جرمد النقنه ماشان حرونتنا إنه روتي ترنو وأنا ولي إلا بين ذلك فربضنا مروة لهذا قرنكو مروة رحمن سلطان يرونتي ماشان كهيسو oo dadkii isha noogu furay nooga warramay dhibaatada halkan ka taagan ay ahayd iyadana waxa la jazaakumullahu khayran ilaahay waxaan ka baryayaa in inagii adigu baan insha Allah ta'ala ka qayb qaadano khayrka ummadan loo seeday ama loo biloobay diiwaanka sakadana walaalaha nala shaqeeyay ka soo kalahay la shari ka shaqeynay hawshanna waxa leenahay insha Allah jazaakumullahu khayran ilaahay baa idin og jazaakumullahu khayr alaykum salaam weeyo hogmahidi salooda jaraxsida waxa u baahan gid ciida وجمهدين شالوا كده عشان البريشة أيه وجمهدين يا هاي يا هاي مسير عبان يا ساجد والله السلام عليكم. إلى بام هذا صورة قال لكم كان ما أنت عن سكون مني وما أنت الموت شغل بالمحيي هدين قدوميه دوان سكات شيخ سعيد قدومي كتجين كشيخ عويل حسين عبد القادر آدو ماتين دوان سكاد مركي وجوه الرئيسي وحكينان معها ومركي صدحات كينان قبل كنا كمجا عن لها آدو ماتين ما أنت واحد ما فرحت يجوين لا شوجان ومضي باهي ومضي وباهنير أي أركينا أي ما أنت عنده جسارين. dhibaatay sano carruurta hayna ururkaas sabab ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dadka noo keenaya ururkaas alxamdulillah baan ku mahadnaqaynaa qoor walba nana og nana caawinaya nalana socdo dhibaatada iyada waxaan meel kasta ku hayna gurigan joognada walaalayaal maanta waxaan noo ilaahay mahadiya isku keenay goob kamid ah goobaan ku bixinayna dadkina walaalahayna dhibaataysan baahiyaha qaar ka qaban ku caawinayna taasoo runtii nooga timiday diiwaanu saka iyo ururka soo wada iskaashanaya أنا كوك قيبني لا بقولو كويس كاسو راشين iskugu jira saddex qaybood daqiiq saliid sonkor iyo bur marka waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeynayna ina wala dibna isku soo noqon doono oo caawin doono walaalaheena oo marka saxan u taagnaano caawinta walaalaheena danta gaarka qaba walaalayaal iyagu ma shaqaysan karaan oo ma awood uma laha inay shaqeeyaan ama ay xoogsi tagaan waxa la inaga sugayaa inaga weeyaan inaanu caawino ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana uma waayin maxaan ku dhaaday ilhaadkooda uma waayin laakiin waa wax waano iyo maxaan cibra inoo tahay inagu inaynu ku cibra qaadano oo inaynu isku caawino soo ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu gargaaro fadlan waxaan naga codsanaynaa walaalayaal inaynu u taagnaano caawinta walaalaheena baahiyaha gaarka qaba bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaal waxaan idin sheegi lahaa ilmaha yareeda arkaysaan waxa ku dhacday madaxa weynaanaya jirkiisii kale intii kale uu ka weynaanaya madaxa wuxuu u koraya si xad dhaaf oo ka awood badan intii kale jirkiisa sida hada arkaysaan ba imika madaxiisu walaal uu ka weyn yahay waxa la sheegay in hadii qalliin lagu sameeyo qalliinka ah oo ku badbaadi karo haduu ilaahay u qoray waxaan dadka umada ka codsanayaa maalin dhawta la sheegay in adna hospital lagu qalay qalliin noocaas lagu sameeyay oo dadkii lagu sameeyay alxamdulillah oo ilaahay ku caafiyay marka walaalayaal cidii karaan le ama cidii awoodaysa بالفضل كوننا صاع وسوي الخير سلوا قصمة قليل الله مدحيسه هو مركا ولا كره شركيسه ولا من ضبط إن شاء الله تعالى عدي مركا عامله ونقل صاح حريري كرتان ورك السود إسماعيلان ومن ديفلوبمنت سنتر أما واحد لك صاح حريري كرتان ديوان وسكال لبضبا ولا واحد كهل كرتان إنفورميشن كانوا باهتين هذا دورتان واحد كله كرتان يوتيوب جمال وفن كبرى مركا إنفورميشن كسوي حيس أنا مركا حاجات